maxaa ii muuqday farxadaan sugahay waxaan lahay maxaa lagu sheegi doonaa geerida wiilkaygaa lay sheegay markii la ii sheegay wiilkayga geeridiisa aadan waxaa beedkiisay waa aabe cali jaamac dhoodi oo wiil uu dhalay iyo 3 kale oo qoyskiisa ka mid ah loo qaaday tababar ciidan oo dalka dibaddiisa ah dhammaadkii 2019 iyo bilowgii sanadkii dhammaaday ee 2020 aabe cali isagoo jooga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa taliska nabad sugidda Soomaaliya waxa uu ugu yeeray magaalada Muqdisho bartamihii sanadkii hore waxaana loo sheegay in wiilkiisa oo tababar ciidan dalka dibaddiisa loogu qaaday uu dhintay bal warna waa wacdeene wuxuu yiri sawirkan ma taqaanaa wiilkaaga magaciisa sheeg wiilkayga waxa la yiraahdaa Cabdisamad Cali Jaamac la yiraahdaa ana dhalay sawiriis ma taqaanaa ha maxaa dhacay aqoon waa aqaana sawirkiisu isoo baxshay ninkan ma yahay yiri ha hayre wuxuu yiri ninkan waa dhintay ninkan waa dhintay anigii ilaa 3 asbuuc bil dhana waxa leegu lahaay waxba lagu sheegaa imow habeen kamid ah markii la sheegay anigii runtii qaracan meeshaas waxa iiga muuqatay dareen aan la soo koobi karin maxaa ii muuqday farxadaan sugahay waxaan lahay maxaa lagu sheegi doonaa geerida wiilkaygaa lay sheegay markii la ii sheegay wiilkayga geeridiisa aadan u naxay ma filanaynin laakiin amar ilaahay dadku wiilna waa dhashaa wiilna waa dhintaa allah ya raxmo raximin waxaa beedkiisay wiilkayga ilaa been uu ku duugaya ma aqaan wadan uu ku duugaya ma aqaan aniga wadan uu ku duugaya ma aqaan waxaa beedkiisay waa duuganaa waxay meedka anaga duugnay maxaa ku dhintay aniga asbaabta ku dhintay sheeg ma xanuunsanaan hadduu xanuunsanaan maxaa intuu xanuunka haay maxaa la igu keeni waayay aniga dawla ay qaaday dawladdan waxaa lagu ogaay in caafimaadkiisa iyo ay tabantaabto hadduu xanuunsan yahay ee dalkiisa ku soo celiso hooyo ay ka qaaday aan sugaynay waxay dhaheen anaga ninkaas waa dhintay tababarku ku dhintay ma baarashadu ka soo dhacay ma buuro ka soo dhacay aniga ma ogeyn markii horena waxaan u haystay dalka dawladda calaqaadka ay leedahay in ay dawladaha hadda lahaayo oo dalka wax rabteen ilaa hadda la iima sheegin laakiin dadka bulshada iyo nabadoonka wuxuu u sheegay qadar in loo qaadaa waxaan lahay maadaama wiilkaagii ay maaragtay jaamacad u weystay waxbarashadii dugsiga uu dhamaystay in uu qarankaas iga mid noqdo oo dalkiisa iyo naftiisa iyo aniga aan dhalay inaan wax ku dheefsado waa noqon weysay waxa la yiri wiilkaaga waa dhintay marka wiilkayga ma ahan adoon la soo iibsado ma ahan nin muwaadin Soomaali oo ahay dalkaana u dhashay qaranka u riyaaqsanay mana aan helin xaquuqdiisana ma aan helin xaquuqdii uu lahayna dawlo haddii sharciyan diini la yiraahdo dawladda mas'uul ka ah aabe cali jaamac inkastoo geerida wiilkiisa ay dareen ku reebatay haddana waxa uu walaac xoogan ka muujinayaa qayb kale oo qoyska ka mid ah oo warkooda aan weli lahayn iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in tiro ka mid ah dhallinyaradii tababarka ciidan loo qaaday ay ku dhinteen dagaal ka dhacay Itoobiya walaa ku adeeradiis aniga ila dhashay 3 nin oo adeerada oo aniga ila dhashay oo asiga adeer u ah ayaa la jiray ayagana war iwaal uma haayo inay nool yihiin inay dhintaan war uma haayo wallahi waxa aad maartay moraalkayga si maartay walaac u si abuurma maadaama wiilkayga ku dhintay ayaga xafiiska ii sheegeen kuwii kalena iga jiraan walaac badan ayaga haayo waalidiintii na dhalayna waa isoo wuxuu waa yeelaa adaa xamar joogo war naga sii ay ugu haayaan waxaan u sheega ma aqaano wiilashii kale meel ku sheegay leeyihiin marka xafiiska haddaan warsa tagane war la faafiyo meeshaas ayaga ay wax sheegayaan iyaga ma muuqato marka waa wax sirdoona bil guuribo
aabe cali jaamac dhoodi waxaa madaxda dowladda federaalka uu u jeediyey baaq ah in wiilkiisa oo loo qaaday tababarka ciidan oo dalka dibaddiisa ah kuna soo dhintay halkaas ay dowladdu bixiso magtiisa. waxaa kale oo intaas u dheer oo uu doonayaa xogta dhallinyarada kale oo iyana tababarka ciidan loogu qaaday dalka dibaddiisa maadaama walaaladiisa ay ka mid yihiin dhalintaas. nin dhulkiisa hooyo ku dhintay ama u dhimana waxa waaye waa nin ahlu janna waaybo duugtii xaalkan ku siinaynaa maadaama annaga aan dugno duugtii xaalan ku siinaynaa magtiina insha allah dowladdan dib ula noqonaynaa. waxaa dad mas-uuliyiin waaye hadalkooda waa aaminay duugtii waa isiyaan beledweynaan ku noqday duugtii iyo ducadii ayaan u soo sameeyey xilligii aan lahay diyadii waco aan xamar soo gala haddana marka waxay dhaheen diidaada waa helaysaa. waqtiga hadda sanadkii cusbahay oo 2011 ka ahayd ayaan aan wacday waxaan hal sano isugu hayaa xafiiskiin adinkaa nooga mas-uula dowladda maxaa iiga haysaan. taleefonkii dhan waa leega xirtay taleefonkii awal iga wici jireen iga hagaayeen waa leega xirtay. cabasho badanaan muujiyey codsiyo badan whatsapp ay lahaayeen aan u qortay wax iga soo jawaabana waa waayay. danta marka waxay ka laftay inaan miidiyaha soo istaago oon gaarsiiyo mas-uuliyiinta dalka Soomaaliya dalka ayaga mas-uuliyiinta waxaan ka codsana aniga muwaadin Soomaaliya ah aabbaan ah qaranka Soomaaliyeed jiritaanka Soomaaliyeed ka shaqeynaya wiilkayga waa dhimayay geeridu waa xaq meel kasta oo ku dhintaba maadaama ameedkiisa aan arkin hadduu xaq leeyahay xaqi halaysiyo xaq hadduu leeyahay haddaan mag leeyahay dowladda waxaan ka codsana xaqi halaysiyo aabbaan ahay. kuwa kaloo nool oo hadda ku jiro tababarkii waa u dhammaada la leeyahay war iyo walcaana ka mahaayo waxaa ku jiro kuwa ila dhashay qaaraan abtiyaal u ahay hayna ku jirto war iyo walcaan u mahaayo inay nool yihiin ayakana. marka waxaan rabaa dowladda waxaan ka codsanaa dadkaas kale nool hadday nool yihiin inaan noloshooda ogaano hadday dhinteen in naloo sheego. waxaa sii kordhaya walaaca bulshada dhexdeeda ah ee la xidhiidha dhimashada qaar ka mid a dhallinyaradii loo qaaday tababarka ciidan ee dalka dibaddiisa ah waalidiintuna waxay ka wardhoorayaan dowladda federaalka. cabaas xuseen muuse mustaqbal t v muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier